weerar ismiidaamin ayaa gelinkii dambe maanta waxa uu ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar iyadoo qaraxaas laga maqlay qaybo badan oo kamid ah magaalada Muqdisho. ruux la sheegay inuu ahaa qof isku soo xiray walxaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyay xarunta dawladda hoose wax yar uun kadib markii uu goobta ka tagay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan. wakiilka oo duhurnimadii maanta dawladda hoose gaaray ayaa kula kulmay mas'uuliyiin ugu sareeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. warar soo baxay waxa ay sheegayaan in qarax kadib la maqlay rasaas xoogan taasoo u muuqatay inay ahayd rasaas ay ridayeen ciidamadii amniga ee ku sugnaa halka la weeraray. qaraxan waxaa lagu soo beegay xilli halkaasi uu kulan uga socday gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo kulanka waxyaabaha la iska warsanayay ay qayb ka ahayd amniga caasimadda oo ay mid aqalka dawladda hoose ku jirtay. warar soo baxay waxa ay sheegayaan in dadka qaraxaasi ku dhaawacmay uu ku jiro gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho kaas oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay isbitaalka Digfeer. waxaa soo baxay warar sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaawac daran ka soo gaaray qaraxaasi iyadoo saraakiisha caafimaadka isbitaalka Digfeer ay la tacaalayaan sidii mas'uulkan ay u badbaadin lahaayeen. sidoo kale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaasha degmooyinka Wardhiigley, Cabdicasiis, Xamar Weyne, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada Kaxda, afhayeenkii hore ee gobolka Banaadir oo hadda ah agaasimaha nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane, afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere, agaasimaha xiriirka degmooyinka Dhagacade iyo mas'uuliyiin kale. warar mustaqbal ay heshay waxa ay sheegayaan in sidoo kale dadka qaraxaasi ku dhaawacmay ay ku jiraan askar iyo qaar ka mid ah shaqaalaha aqalka dawladda hoose maadaama halkaasi aad loo buuxay oo uu shirka socday. si kastaba qaraxan waxa uu ku soo beegmaya maalin kadib markii ismiidaamin kale ay ka dhacday wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha aadan cadda iyo isgooska kiiloomitir 4 iyadoo qaraxaasi ay ku dhinteen in ka badan 17 ruux oo rayid u badnaa.